السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. marka hore waan salaamayaa dhamaantiin. Marka xigta maanta waxaan rabaa insha Allah inaan idinka faa'iideeyo unlaga FM la yiraahdo oo badanaa dadka job centerkii ku xiran ama dadka job center ka tirsan oo soo diro. Video quality aad buu hooseeyaa laakiin insha Allah waa inuu ka faa'iideyno doonaya inkastoo waqti ugu yar dartii aan doonayo ka faa'iideeyo. Walaal Soomaaliyeed baa insha Allah loo soo diray. Marka waxaan rabaa inaan aan buuxiyo insha Allah idinkuna aad ka faa'iideysataan. Haddii aad insha Allah tacaala aad tahay qof job center ama social ama raba in warqado buuxis laga caawiyo fadlan walaalka Soomaaliyeed baan ahay daatadaada insha Allah ku ilaalinayaa ila soo xiriir wixii warqada ay soo dir insha Allah anaa ku buuxin doona insha Allah tacaala si bilaash ah oo lacag la'aan ah. waxaan jeclahay insha Allah markasta wixii aan aqaanayna walaalada Soomaaliga faa'iideeyo. haddaba haddii aan u gadagalno insha Allah warqadan walaalka Soomaaliyeed job center-ka uu soo diray adigu warqadan wuxuu soo diraa job center-ku ama social kuma jirto umaleynaya inuu aqoon u leeyahay social laakiin job center-ka wuxuu soo diraa adigu markii sanad ama dhowr sanad iyo wax saas aad ka tirsanaato job center. marka warqadan badanaa wixii job center-ku ama amtigu ay rabaa inuu ku ogaadaan wixii lacaga ama dhula ama bank wax ku yaala insha Allah tacaala imika wada gali doonaa si inuu ogaano. marka ugu horeysa qodobka ugu horeysa waxa la yiraahdaa personalische Daten that Antragsteller und Stellerin und des Antragstellers adoo nin iyo naag adoo qofka marka ugu horeysa daatiisa xagga hor lagu qoraa taayna wad garanaysaa maleeyaa anta nin iyo naag waxa tahay forna magacaaga hore family ama magaca waalidka aabaha hooyada maya awowga iyo aabaha afwan Geburtsdatum dhalashadaada iyo Nummer der Bedarfsgemeinschaft lambarkan waa lambarka qof kastaaba job center-ka uu ku leeyahay. lambarka waxa laga helaa badanaa warqadaha job center-ka iyo soo diro dhinacaas ay ka qorantay markasta. waxa lagu sii raaciyay Falls Forehand haddii aad heli karto ama aad xifdisan tahay ama uu ku dhow yahay ku qor haddii kale waajib maaha. okay haddii aan u sii gudubno qodobadaydii halkan maxaa ku qoran qodobka labaad waxa la yiraahdaa Konto und Bargeld anlage adigu waxa weeyaan qodobkaas adu salahan bargeld salahan haddii ay guriga oo qofkaasi u taalo qofka warqada loo soo diray la sheegay haddii ay guriga ku taalo lacag kaasha ayaa halkan ku cadeynaysaa qofka lacagta ka marka haddii lacag kaasha salahan ku taalo halkaas aad wax saaraysaa halkaas isku talaab saaraysaa kadib magacaad ku qoraysaa name de person qofka magaciisa gesamt betrag in euro salahan lacagta ku taalo lacagta inta soo 10 euro ku qoray 20 euro haddii ay jirto qof kale guriga ila degan oo lacag guriga u taalo salahan sidoo kale aad u qoraysaa. okay Giro konto halkan Giro kontoga waxa weeyaan waa bangigan caadiga ah leenahay shbeekaas maxaa la kale Volksbank baa la Deutsche Card aduu wixii aad leedahay oo bangiga ayaad ku qoraysaa insha Allah tacaala xagga waxaad ku qoraysaa qofka bangiga iskale salahan hebel filan Kontostand waxa weeyaan waqti xaadirkan bangiga imsa ku jira 10 euro 20 euro 1000 euro 2000 euro ku qoraysaa. e-bank waxa weeyaan e-banka xisaabta bangigaaga ama kaarkaaga e-bank saad ku qoraysaa. haddii ay jirto qof kale oo kaarka kula isticmaala ama ay jiraan bangiyo kale aad leedahay halkan baad ku qoraysaa insha Allah. salahan anigu shbeekaas oo kala leeyahay anigu haddii aan VR leeyahay kan ka qoraya haddii aan kale aan post baan leeyahay kan ka qoraya adoo su'aalahaan bangiyo kale haddaad leedahay qoraysaa waxani waa wax qasab weeyaan in loo qortana waa waajib. okay safxada hore page-ka hore saasan kaga gudbaynaa page-ka labaad bay u gudbaynaa. page-ka labaad waxa ku qoran nuqdada waxa la iska rabaa wax la yiraahdo Kreditkartenkonto PayPal und Weiterkonto salahan waxaan leeyahay credit card soo wada garanaysaa waxa weeyaan anigu aan leeyahay Mastercard ama Visa card. haddii aad Mastercard ama Visa card mid leedahay waxaad sameynaysaa halkaas ku qoraysaa
master kaarkaagii ayaad halkaa ku qoraysaa sug caado maarsan malaynayaa okay master kaarkaagii qofka magaciisii master kaarkaagaas ku qoraya markuu ugu qoro gesamt betrag lacagta inta master kaarka ama kaarka aad markaa haysato ku jirta halkaas ku qoraysaa okay muxuu yahay markaa kaarkaada haysta ama credit kaarka ama PayPal ba xagaas marka dambe ku sii qoraysaa isagana haddii ay jiraan dad kale guriga kula degan sidoo kale magacooda iyo sidii hadoo kale wuxuu ku leeyahay bitlegen c expression naqfas markaad waxaan qorto waxa laga doonay naqfas oo ah in warqad aad ka haysato tusaale inaad kaarka leedahay lacagtaas ku jirto okay qodobka labaad ee gud waxa la Sparrenlagen zum Beispiel Sparkonto, Sparbücher, Tagesgeld und Prämiensparen qodobkana waxa weeyaan tusaale ahaan bangiga anigu tusaale ahaan imika Sparkaasaan leeyahay Sparkaasa waxaan ku leeyahay koonto kale oo la yiraahdo Sparkonto waxa weeyaan in aan leeyahay koonto yar oo lacagta ku urursado sida bil kasta 20-30 koonto waxaan awoodo aan ku urursado haddii ay jirto koontadaasi Sparbücher iyaduna way iska soo agdhibi labadaasi ta kale waxa weeyaan haddii jirto waxa Tagesgeld waxa weeyaan tusaale ahaan aabahay ama hooyaday dad lacag leh marka iyaga ayaa Tagesgeld siiya Tagesgeld qofka lacagaha maalmaha la siiyo weeyaan haddii ay jirto taasna sidoo kale haddii ay jirto waxa la yiraahdaa Prämiensparen waxa weeyaan inaad tiraahdo bangiga kuleysoo kale waxaan doonayaa inaad bil kasta iga goosato 5 euro 10 euro si sanadku markuu dhamaadana lacag anigu aan u helo haddii ay waxa soo jiraan dhane magacaad qoraysaa qofka magacaas waxaad ka qoraysaa oo kale lacagta intay tahay bankiga koontada Sparkaasaha ama Sparkontaha leedahay bankeeda ka qoraysaa sidan tan oo kale waa sidoo kale haddii adiga ku qosayso fadlan halka dhiban saar haddii aad koontada leedahay oo cadeey dawladda insha Allah qodobka kale waxa weeyaan markasta aad waxaan qorto waxa laga rabaa cadeyn naqfas baa laga rabaa ama koonto cusub okay noqdada kale waxa la yiraahdaa Sparbrief oder sonstig Weiterpapier accent anleihen und Fondanteil tan waxa anaga noqosay maaha waxa weeyaan dadka sheerarka ku leh ama forex baa loo jeedaa wixii berigi dhaweed la dhacay oo kale hadaa sheer ku leedahay ama hadii aad bitcoin ama waxyaalaha saas ashum hadii aad ku leedahay suuqa online ka ama sheer caadi aad ku leedahay meel waad noo sheeg halkaas aad tig saaraysaa kadib magacaaga qoraysaa article laagad qoraysaa iyo waxyaalahaas oo dhan wixii ku saabsan anigu tan ma qosaysan maxaa dad sheer iyo wadanka wax ku leeyahay okay ka gudub dhibcada kale waxa la yiraahdaa Bofetrator waxa weeyaan Bofetrator in tusaale ahaan aad adigu guri baad dhisanaysaa oo kale guriga markaad dhisanayso waxa jira bangiyada halka inay guriga ay ka bixiyaan lacagta guriga ama barka dhima ama ay wax ku qabtaan adiga ama akoon ku sameeyaan tan ma qosayso inagu dad guriga dhistaan dad guriga kiraa ku jiraan badana dadka qaarna guriga kaaman bay ku jiraan taana kuma qosayso jimcadaasi haddii aan page kale u nimaadno kan waxa weeyaan waa capital waxa la yiraahdaa Kapitalleben Versicherung und Privatrente Versicherung dhibcadan waxa qosaysaa tusaale ahaan qofkii capital ama wax lacaga ama wax adigu Versicherung tusaale ahaan Privatrente Versicherung waxa weeyaan aan ahayn ka iyo adag labada mid aan ahayn oo hadii aad ku jirto privada dad waxa jira karaanka kaasaad tusaale ahaan ama waxyaalahaas Versicherung privada ku jira adoo halkaas aad ku qoraysaa halka aad qoraysaa qofka magaciisa iyo Versicherungka unternehmen shirkadda aad kaga jirto Versicherungka aniga Soomaali ahaan kulay tan badan ayna ma qosayso maxaa yeelay badan ka iyo waxyaalahaas ay ku jirnaa nuqdadaasna iska dhaafaysaa maxaa yeelay hadii ku qosaysana waa taawar hadii kana iska diinsan okay tan kale soo gudub waxa la staatlich gefundet alte Versorger Khayntan und tusaalahaan nuqdadan waxa weeyaan talaftirkeeda noqosaynaga waxa weeyaan alte Versorger tusaalahaan
anigu waxaan jiraa dhowr iyo 10 sano jiraa bishii waxay soo gashaa 2,800 marka waxaad samaysay bangigaad u tegaysaa waxaad ku oranaysaa lacagtan iga badan tahay 500 oo euro ayaan bil kasta bangiga dhiganaya markii aan dhowr iyo 20 sano ama 30 sano ama 4 sano aan gaaro ayaan rabaa lacagteeda in dib ugu soo celisaan marka taasna ma qosayso maxaa yeelay waxa laga yaabaa inaga haddii aad 20 jir xataa wadan ku joogtaa 2,000 soo gasho in 2,000 xataa aad qof yar yahay ma jiraan malaynaya qof Soomaali intuu bangiga tago ira 1,000 euro bil kasta maxaa yeelay waxa laga yaabaa in waalidka ama hawlo kale ka xayarnaad ku fushisto okay noqdadaasna kuma qosayso noqdada kale wadka waxaa la yiraahdaa befreegun von der Rentenversicherungskonflikt tan Versicherungskonfliktga kuma qosayo iska daa haddii ay jiraan dad horumarayo barnaamijyada ku xulana tig bay saari karaan bixin karaan qodobka shanaad baan gudbinaa waxaa la yiraahdaa Grundstück und oder von Eigentum auch Eigentumsteil waxa weeye inaad adigu aad leedahay Grundstück und von Eigentum salahanad gurigan aad wadankan aad guri adiga khaas ku ah leedahay ama Eigentumsanteil ama aad qof aad guri wada leedin salahan aniga walaalkayba qol wada leh waxaas taa sheegtaan tan waxa weeye Bautos bibauten Grundstückga adigu inaad wadanka ku leedahay beer unbebaut Grundstückga inaad dhul beeran aad ku leedahay salahan beer baad leedahay laakiin way beerantaa unta ku beeran raashin ama inaad lahayd dhul banaan aad leedahay aan beernayn ama inaad leedahay Eigentumswohn ama guri adiga khaas ku ah dad way jiraan kulli Soomaali wadanka guriyo kule laakiin yar kana u buuxinayay Soomaalidiina kale guri wadanka kuma leh intan waxa sheekada sii socoto guriga cabirkiisa waxa lagu buuxinaya tani waxa weeyaan noqdada lixaad waxa la sonste vermogen adigu tan waxa qosaysaa gemeldet adqueten iyo edelmetal ishmuk adigu salahan hadii ay bangiga ku yaalaan wax ishmuga sida dahab sida sawir qaaliya oo bangiga la dhigto sida lacago dollar euro oo laakiin qiimahooda bangigu aysan ogeyn laakiin adigu ogtay waxyaalaha sidee ku yaalaan waxaad sameynaysaa halkan baad buuxinaysaa taasna inagana ma qosayso kullu qof Soomaali bangiga lacagahaas ama sawir qaali u yaalaan ma garanayo noqdada ugu dambaysa ama luqadda toddobaad waxa la yiraahdaa Kraftfahrzeug zum Beispiel BKV motor haddii aad leedahay wax matooraba wax matoor ku jiro oo baaskiilad ahayn oo dhaqaaqda ayadana halkaas aad ku buuxinaysaa kilometerka sidoo kale waxyaalahaas oo dhan noqdada sideedaad ugu dambaysa waxa la yiraahdaa Schenkung spenden und übertragen noqodan waxa weeyaan salaam qof dhaxal kaaga dhintay iyo inaad waxa jira lacaga bangiyada la dhigto oo hadhow doonaysa inaad macaash ka hesho hadii waxaas jiraan halkaas aad ku buuxinaysaa inagu waxa ma Soomaalideena waxaas ma lihin oo qof dhaxal inta lagu dhinto bangiga lacag lagu shubo inuu jiro baa malaynaya aniga aqoonteeda halka ugu dambeysana waxa weeyaan waa ort magaalada degan tahay Soomaaliga kale waxa deganahay magaalada Goota waqtiga iyo saxiix waxaan ka raaligelinayaa video quality-ga aad yara hooseeyo maxaa yeelay anigoo degdegsan baan waxaan jeclahay inaan la wadaago wax kastoo muhiim ah ama sida warqadaha iyo waxyaalaha loo bixiyo waan salaam alaykum warahmatullahi